بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا برنامج كني تحناها لندن ماي هوم تاون بلوك مانتا waxaan idinkala soo hadlayaa waqooyiga magaalada London xaafadda caanka ah ee la yiraahdo Edmonton Soomaali aad u fara badan ayaa degan ganacsi ku leh isla markaana waqti badan aad u deganaa xaafadan dadkii ugu horeeyay soo degay waxay ahaayeen markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee adduunka ayaa dad madow ah oo laga keenay wadamada Caribbean-ka sida Jamaica iyo Bahamas iyo Barbados ay halkan soo degeen waxaana ku xigay sanadadii 60meeyadii ilaa 70meeyadii dad ka yimaaday wadanka Turkida iyo Greek Cypriotka 70kii wadankan la keenay si ay ugu shaqeeyaan waa xaafad working class ama dadka shaqeeya ay degan yihiin dadka madowga ah Soomaalida Greega iyo Turkiga ayaa aad ugu badan marka dhankan haddii aad eegtaan waa dhanka Edmonton Green xaafadda la yiraahdo oo ka yimaado dhankan waxay caan ku tahay waa Broadway-ga halbowlaha u ah xaafadan caanka ah ee la yiraahdo Edmonton meel walba martid waxaad ka arkaysaa Soomaali waxay kaloo caan ku tahay waxa bartamaha ka mara wadada ugu caansan magaalada London ee la yiraahdo A406 ama North Circular Road oo magaaladan London ku wareegta ayaa halbowlo ah wadadan waxay isku xirtaa mar waan arki doono inta u dhaxaysa east-ka iyo waxay isku xirtaa iyo dhanka westiga ama bariga iyo galbeedka ayay si toos ah isugu xirtaa marka dad aad u fara badan oo xaafadan degan waxay inta badan ka dukaameystaan dukaanka caanka ah ee raqiiska ah Lidl dhankaas kale ee wadadana waxay isku xirtaa xaafadda la yiraahdo Tottenham ama Tottenham Soomaalidu Tottenham ay yiraahdaan laakiin Ingiriiska Tottenham ay yiraahdaan marka basas aad u fara badan oo Soomaali ay ka shaqeeysan u jeedaa ayaan arkaa waxaa kaloo ku yaala masaajidka caanka ah ee Edmonton Mosque oo inta badan janaasadaha lagu tukado dadka ku geeriyooda magaaladan London ee Soomaalida marka waxaan isku dayaa dhankan inaan u gudbo si aan u eego dhanka kale ee ganacsatada Soomaalidu ay ku leeyihiin waxa kaloo caan ay ku tahay maqaayadda London 24 maqaayadan runtii waa maqaayadan ugu jeclahay 24ka ah waayo waxa laga cunaa cunto nooc walba ah waxa laga cunaa cambuulada marka dadka tagaasilayda ah Soomaalida ajnabiga ah 24 hours waxay joogaan halkan ayay cunto ka cunaan xilli walba oo ka soo tagtay marka wadadan hadda ayaan eegaynaa iyo masaajidka waxa ku yaala maqaayadda caanka Istanbul waana gole aad u weyn oo Soomaalidu ma aragtay ay aad iyo aad u degan yihiin marka waxaan rabaa dusha inaan ka sawiro dadka inta degan waxay isugu jiraan dad bas ka shaqeeya tagaasida dad shaqooyin professional haysta oo kala duwan marka waxaan iminka eegayaa maqaayadaha caanka ah ee Soomaalidu ay ku leeyihiin meeshan ee London runtii cambuulaha hadaad doonaysid baasto hilib caano wax walba inta ayaa laga helaa runtiina waa meel habeenadii markaan baashaala naga imaado dhanka iyo galbeedka magaalada London aan soo maro waxa kale ku yaala xawaalada aad ku aragtaan kalkaalka Shankari iyo Soomaali aad u fara badan ayaa ka dukaameysata wax walbana sameeysa marka waxaan isku dayaa dhanka masaajidka in aan aado iyo wadada isku xirta halbowlaha ah ee la yiraahdo A406 oo magaaladaydan aan aad ka u jeclahay ay caanka ay ku tahay marka dhankan haddii aan aadno wadada ayaan jaraya waxaan aadayaa dhanka wadada halbowlaha ah ee caanka ah ee la yiraahdo A406 la yiraahdo marka A406 waa kan wadadan waa Artery Road ama waa wada halbowlo u ah magaalada London dhankan gawaaridu iminka u sii socdaan waa gobolka la yiraahdo Essex ee aan deganahay iyo waxay u sii socdaan oo kale dhanka iyo bariga magaalada London dhankan kale haddii aad sii ogtaan buundada hoosteeda ama tunnelka waa dhanka waxa loo sii aadayaa iyo galbeedka magaalada London marka halkan ayay ku eg tahay Edmonton xaafadda la yiraahdo iyo Broadway halkan ayay ku eg tahay dhankan kale haddii aad sii eegtid waxa ku taala maqaayad inta badan la xayisiyo Soomaalidu wax ka cunaan oo la yiraahdo Chowdhury la yiraahdo oo cunto 9.99 ah lagu cuno iyo dukaanka kale caanka ah oo kan ku yaala wadada ayaan sii jarayaa waxaana sii aadayaa dhankan iyo masaajidka caanka ah
ku yaalla isla xaafadan caanka ah ee Edmonton oo Soomaalida faraha badan ay ku nool yihiin marka halkan ayay ku eg tahay dhankan waxa ka bilowda xaafadda la yiraahdo Tottenham ayaa ka bilaabata iyo iyadana waan ka samayn doonaa insha Allah haddii la yiraahdo waxay ka mid tahay meelaha ugu muhiimsan magaalada London ee Soomaalidu ay degan yihiin marka halkan haddii aan u sii socdo dhankan waxaan sii socdaa iminka koonfurta ayaan ku aadanahay laakiin waxaan u leexanayaa bidixdan ayaan u leexanayaa waxaad ku arkaysaa masaajidka caanka ah ee la yiraahdo Edmonton Mosque ayaa ku yaala ama masaajidka Edmonton masaajidkan waxa ku tukada dadka ugu badan ee ku tukada wadada Soomaali ah waxa kaloo inta badan caan uu ku yahay oo maaragtay lagu tukada salaadaha saan hore u sheegay janaasada ah dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale ajaanibta ah ee Hindida iyo Bangladesh iyo Pakistaaniga ah waqtigoodii uu soo dhamaaday ama halkan ku xijaabtay iyo halkan lagu tukadaa waxa la yiraahdaa Edmonton waad u jeedaa Islamic Center al-Masjid ayaa la yiraahdaa marka masaajidkan jimcihii haddii aad timaadid aad ayuu u weyn yahay laakiin banaanka xataa waa lagu tukadaa waayo space male waxa ku xiran meel daarul raxma hall la yiraahdo oo xafladaha iyo wax lagu sameeyo halkanna waxay ku samaystaan meesha gawaarida iyo la dhigto marka waad aragtaan haddii aan gadaal u laabto waxaan isku dayayaa iminka inaan eego oo aan ku laabto dhanka kale aan ka tuso xaafadan Edmonton ee ku taala magaalada London barnaamijkan taxanaha ah ee aan ka samaynayo ee la yiraahdo my hometown blog ee London la yiraahdo soo horadii kugu sheegay magaaladan waa magaaladaydii oo aan ku noolaa nolosheedii inta ugu badneed waana magaalo aad u qiimo badan oo dad badan oo aniga aan ka mid ahay nolosheeda aad u bedeshay magaaladan waa magaalo fursad badan shaqo badan wax walba ganacsi laga samaysan karo haddii fursad laakiin nasiib xumo mar walba waxaan idhaahdaa Soomaalidu haddaan nahay fursadan kama aanan faa'iidin sidii loogu talagalay marka dhankan waxaad ku aragtaa tabeelooyinka Edmonton Angel ayaa la yiraahdaa meeshan ay ku kala baxaan kuwaasoo ah kuwa aada xaafado kala duwan basaska dhanka toos haddii loo aadana waxaad ku arkaysaa xaafadan kale isla Edmonton ah oo dhanka kale ah oo iyadana Soomaalidu ay aad iyo aad ugu nool yihiin marka mar labaad waxaan ku laabanayaa dhankan iyo waxaan ku laabanayaa xaafadda inta wadadan ayaa ku kala xiran waxaana dhanka kale ku yaala garaash nin dhalinyaro ah Soomaaliya uu leeyahay halka ku yaala kaasoo gawaarida lagu sameeyo waxyaalaha aan runtii aan aad ugu farxo markaan arko ganacsiyada Soomaali ah oo meeshan ka samaysatay meel noloshooda ay ka soo saaran karaan xaafaddana waxa ka soo gala xisbiga Labour-ka la yiraahdo oo maaragtay haddii la yiraahdo berrito oo khamiis maanta waa arbaco berri oo khamiis ah ayaa doorasho dhacaysa marka qof walba Soomaali ah waxa muhiim ah inuu codka siiyo Labour waayo dawladdan gacanta midig ee conservative haday timaado waxyaabo badan oo Soomaalidu dhibaya guryaha haday ahaanad gunooyinka haday ahaan lahayd ayaa la kala joojinaya sida awgeed waxa muhiim ah qof walba si smart ah in uu codkiisa ula baxo isla markaana uu u ogaado qaabka maaragtay uu codka uu bixinayo marka waxaan ku soo afjarayaa barnaamijkeena intuu maqaayadihii Soomaalida iyo dukaamadii iyo ganacsiga waa kan waxaan ku soo afjarayaa oo aan doonayaa inaan tuso garaashkan quality-ga leh aad u tayada wanaagsan ee Soomaalida ay ka furatay meeshan ay ka furatay waqti badan furnaa oo wax walba lagu sameeyo marka haddii aad tahay qof Soomaali ah oo degan waqooyiga ama degan bariga wadadan ku xirta garaashkan Soomaaliyeed oo halkan ku yaala tag gawaarida lagu sameeyaa sicir aad u wanaagsanna way dadku way ugu sameeyaan marka halkaas aad kaga qayb galaysaa gaarigaada geenaysaa waqti yar lagu sameeynayaa runtiina ma oga xataa barnaamijka inaan sameeynayo laakiin waxaan ku faraxsanahay dad Soomaali ah oo ganacsi meeshan ku leh garaash meeshan ku leh maqaayad meeshan ku leh in mar walba Soomaali haddii aad tahay aad siisaan ganacsigiina aad siisaan Soomaalida waana muhiim waayo intaad siinay dad ajaanib ah waxa wanaagsan in Soomaalida ganacsigiina aad mar walba aad siisaan mar kale iyo my hometown blog oo aan kaga soo qabtay xaafadda Edmonton oo ku taala waqooyiga magaalada London waxaan idin leeyahay wabillahi tawfiiq inta wada kulmi doono anigoo ah Cabdinaasir Ismaaciil
waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.